kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina waxaad leenahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee aynu markaasi kaga hadlaynay toddobaadkan ayaa waxa uu yahay kulamo xasaasi ah oo xalay la ciyaaray UEFA Champions League isla reebkiisa iyo sidoo kale kulankii derbiga ahaa ee la wada sugayay ee kooxda Everton iyo Liverpool oo markaasi Taako aan inaba caadi ahayn loo dhigay kooxda Liverpool kulankii ay ku booteynaysay oo markaa ay lahayd 3 dhibcood ayaa meel inoo taalo horyaalkana 9 dhibcood ayaana ku haynaa haddaba uu isla soo idlaaday kulankaasi oo haatan 7 dhibcood oo kaliya ay ku hogaaminaysaa waa 2 kulan oo ay bareejo gasho ama markaasi laga badiyo ayuu ku egyahay haddaba tusaale ahaan aan tusaale idin siiyay waxa uu qayb ka yahay 7daasi dhibcood ay hayso kulankii ay Arsenal 8 dhibcood ku haysay horyaalkii 2023-2024 ay hogaaminaysay 8 dhibcood ay ku hayso xilligan oo kaleentana horyaalka markaasi looga qaaday kadibna waxa markaasi ay noqon kartaa hadii xiliyadan oo kale Taaka lagu dhigo in aad ka niyad jabayso ama ciyaartoydaadii oo idilba niyad jab aad u xoogan markaasi uu soo gaarayo hadii aadan markaasi dhabarka aadan u dhuuqsan sidii aad dhibcahaasi ku heli lahayd ama dhibcooyin kaleento oo sayd ah haddaba Liverpool maxay tan kaga dhigan tahay Everton hadii ay bareejo la gashay kulankana waxa uu ahaa kulan aad iyo aad xasaasi u ah oo caalamka oo idilba dadku ay dhagta u taagayeen oo natiijada ka soo bixi karta kulanka ayaa waxa uu ku bilowday in Everton ay gool kaga hor dhaliso kooxda Liverpool taasi oo goosha ay ku dhaliyeen 11 daqiiqo iyo sakano haddaba 16 markii ay mareysana waxa bareejeeyay kooxda Liverpool oo Mark Alister ayaa markaasi u bareejeeyay ayadoo sidaa ay tahay waxay lugta labaad markii kaambiyadii hore ama lugta hore ciyaarta waxay ku dhamaatay 1-1 oo lagu kala tagay 15 daqiiqo ka bacdi markii ay nasiinada soo dhameysteen ay garoonka ku soo laabteen waxa markaasi garoonka markaasi ay dib ugu soo laabteen ay noqotay in Mohamed Salah uu dhaliyo gool ay markaasi Liverpool ku hogaaminaysay oo ay ka dhigaysay 2-1 halka ayaa markaasi la arkayay qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Arsenal inay qaarkood ay ka cararayeen oo ay dhahayeen kulanka waa dhamaaday oo gambarkii aan dhignayba waa markaasi mid aan waxba ahayn haddaba ciyaarta dhamaadkeeda 98 ayaa waxa laga dhaliyay gool aan inaba caadi ahayn oo looga bareejeeyay 2-2 ciyaarta laga dhigay walow far ay aadeen kooxda kubadda cagta markaasi Liverpoolna ay ku calaacashay in ciyaaryahanka Van Dijk uu ka horeeyay oo markaasi ay tahay goal offside ah laakiin markii la helay farka ayaa in badan kadib waxa uu cadeeyay goosha in ay ahayd goal onside ah oo aanan offside ahayn haddaba waa ay dabaaldegeen oo sayd ay u dabaaldegeen ciyaartoyda kooxda Everton halka macalinka Liverpool iyo waliba qaar ka mid ah ciyaartoydana ay aad u wada caroodeen oo ay taas sababtay in ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaara Taako markaasi la siiyo red card ciyaaryahan Taako ayaa waxa la siiyay red card halka sidoo kalena Jonas oo asna red card oo qaatay oo hore iyo jaalo qabay jaalo labaad iyo red card ayaa la siiyay Slotna waa loo sii raaciyo waxa uu sameeyay caay iyo aflagaado ayuu kala dhacay xiriirka kubadda cagta ee FA-ga dalkaasi Ingiriiska qaar ka mid ah hogaamiye ama garsoorayaashii hogaaminayay kulanka Everton iyo Liverpool dhaxeeyay ee xalay haddaba sidoo kale Real badiska ay ka badisay natiijada ay ka soo gaartay kooxda Manchester City habeen hore ayaa iyaduna sidoo kaleento caalamku idil laga hadalhaya haddaba City ayaa marka ay gool ku hogaaminaysay kadibna waxa markaasi ay kaga dhigtay 2-0 halka Real markaasi hal gool ay kaliya ku haysay laakiin Pep Guardiola ayaa waxa uu noqday tababare isku dhaxyaacay oo inaba aanan kala garanaynin ciyaarta halka ay u baahan tahay in wax laga bedelo iyo halka ay u baahan tahay in ciyaartoyda ay sii joogaan haddaba markii uu bedelay Kevin De Bruyne ayaa ciyaartuba waxay noqotay inay fursad u helaan kooxda Real Madrid inay ka bareejeeyaan isla markaana ay u saariyaan haddaba Real ayaa markaasi waxa halkaasi 3-2
ay dhagta dhiiga ugu soo dirtay kooxda City oo markaasi Pep Guardiola oo xaalku waayahan aad ugu xun yahay. haddaba pressureka haysta Guardiola ciyaartoy waa loo soo gaday, wax walba u baahday waa loo keenay, wili natiijo la'aan ayuu yahay oo waxa markaasi uu xataa awoodi karin in kooxaha qaar uu ka badiyo ama uu bareejo xitaa oo la galo. haddaba daawadayaal kulankaas iyo kulamo kaleento ayaa jiraan natiijooyin fara badan oo xalay ayaguna la ciyaaray. kulamadii championka ayaa xalay ayaguna la ciyaaray iyo waliba kulamo kale oo dhowr ah. haddaba natiijooyinka laga kala gaaray kulamadaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo markaa aad u muuqdo. Atlanta oo la garaacay, AC Milan oo la garaacay, Monaco oo la garaacay iyo sidoo kaleento Bayern Munich oo soo badisay xalay. marka kulamadaas iyo kulamo kaleento ayaa ayaguna habeen hore la ciyaaray. natiijooyinkaasna waxay yihiin kuwo markaasi la wada sugayo lugta labaad inay haddana iska hor yimaadaan isbuuca xiga oo markaasi natiijada kama dambaysta kooxdii soo baxda la ogaan doono. aad baad u mahadsantihiin asxaabteyda qiimaha qaayaha inaga mudan. haddii aad nala soo gaarteen ilaa dhammaadka muuqaalkeena, haddii aad ka heshay fadlan inoo follow garay page-ka YouTube-kana, subscribe inoo saar. mahadsanid, sii share garay si uu asxaabtaada u gaaro oo muuqaalkeenana meel dheer u gaaro. tan iyo intaa dib ugu kulmi doono waa saaxiibkeena Maxamed Abuukar Baari wada leh. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.